السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت لي وحرن سديتين مي في عندين حالدين كورما أنا ويدي وناكسنا هيك سو دواد فيديو عصوب برقاي نوطي حلقة وقرع عنا قرع دي كتب واي وحوا شركة لدهو أوربن كمبني أو صالون كوريا بان مر والبا dalbada صالون inay guriga igu sameeyaan soo kuwaasaan dalbaday xalay toole inay maanta ahaan yimaadaan oo ay lugaha ii nadiifiyaan amba lugaha ay dhaqaan oo ay clean gareeyaan marka waxa waaye gabadhaas ay timid oo la soo diray ayadii hadda guriga igu sameynayso luga nadiifintii amba pedicure waxa la dhaho waxa waaye aniga maadaama aan shaqeeyo shaqadayda istaag weeye waqtiga ugu badan waa la taagnaadaa guriga markaan joogo mar waan shaqeynay marna jikadan ku jiray jikadana iyadana waa istaag soo mar walba lugaha i korra cirbaha iyo cagaha hoose ay xanuuna mar walba saaloonkan baan ka dalbadaa marka inay ii sameeyaan pedicure maanta kale waxaan dalbaday service-ka inay 2 saacadood ay sameeyaan oo lugaha marna ii masaajeeyaan marna ii nadiifiyaan marba waxay sameeyaan 2 saacadood oo kaamil ah marka waa kaasab cagaha wax way biyo la igu ridiyay cidiyaha wax la ii marmariyay cidiyaha la ii nadiifiyay scrub la ii mariyay waa la iga dhaqay bahalka la igu masaajay adduun oo dhan la ii mariyay gabadhan waxay ila joogtay 2 saacadood wallahi hada idin ku dhaho maxaa la dhahay may aaminaysaan 2 saacadood 5 daqiiqo ila ahayd yacni saan ugu raaxaysanayay gabadhaas waxa lagu sameeynaysay ma malaysan kartaan 2 saacadood baaba markiiba iska dhamaatay waxaan ku yiri gabadha waa u qaadan waayaan ku dhahay in 2 saacadood sidan degdeg ugu dhamaato waxaas ka jeclaan lahaa masaajkaas iyo waxaas inay iigu wadid habeen iyo maalinba gabadha waa qasashay soo saasay waxa waaye maas bale ii mariyay igu deysay kadibna way iga dhaqday adi lugahaas 2 saacadood la haystay la nadiifiyay loo masaajay loo raaxay waxa waaye aniga lugaha xoogan saara mar walba maadaama idaalayaan ay xanuunayaan soo bishii 2 mar baan dalbadaa saaloonkan ka badan inaan dalbadan jeclaan lahaa laakiin waxa waaye waqti badan kama buu heliba marka kaas waxa waaye waxa la mariyay hadda maaski iga dhaqday wax kale igu masaajeysay cream baa la ii mariyay 2 saacadood service-ka gabadhii aan dalbaday saas uu ku dhamaatay kadib waa kaas looga markii la nadiifiyay gabadhii yaray buushka ayaan iska soo qaatay waan soo xidhay kadibna waan soo kacay hadda waxaan rabaa inaan face mask yar aan intaan qasto aan wajiga marsado soo ani face mask baan mar walba isticmaalaa weekii 3 jeer baan wajiga marsadaa kulli aniga wuu inaasibay soo face mask waxaan ka sameystaa xawaaye wax yar oo bariis ah oo powder ah bariis rice powder ah oo isagoo powder aan soo iibsadaa wax yar oo kafeeya wax yar oo shumbura wax yar oo malab ah waxaan ku daraa wax yar oo saliid looska wajigayga waa qallayl marka saliid baan ku darsadaa maaska soo wajigu igu yara rado nafaqo iyo qoyaan iyo saliid igu yara yeesho kadibna waxaan ku qasaa amba ciir amba caano maanta kale waxaan ku qastay caano marmarka qaarkood waxaan ku darsadaa alaabtan qasil amba cusbur huruud kolba waxaan iskaga darsadaa soo waxa waaye alaabtan si fiican ugu qasay wajigii hadda marsanaya mar hadda guriga joogtid waxa fiican in mar walba maaskaaga uu ku marsanaado skin care-ka dadka qaar waxay aaminsan yihiin wax usbuucii hal mar la sameeyo inuu yahay laakiin skin care-ka waxa ka aaminsan inuu yahay wax maalin walba la sameeyo kareemka qoraxda marso gacmahaaga moisturizer mari lugahaaga sidoo kale kareemka waxa way ha ka bixinin wajiga markaad waqti u heshid maas marso waxa way seerumtaada mari iskar kareem maalin walba wax marso usbuucina maalin si fiican isku focus kare taas way face mask intaas waa skin care-ka saxdii mar walba isnaash waxa waaye maalin walba isku hel waqti aad naftaada siisid naftaada waa inay number 1 ku noqotaa priority-gaaga naftaada ay yeelataa marka naftaada u raaxaysid naftaada meel soo saartid baad dadka kalena wax u tari kartaa soo maahan soo maskiin soo marsaday kadibna jikada soo kalisa ujeedaanba waxaan rabaa inaan qadeer oo kala kacsan aan reerka uga soo tuuro marka wax weey dabka waxaan soo saartay waa disti waxaan ku soo shubay biyo kadibna waxaan ku soo daray wax yar hayla filfil hayl dhagoole qorofal bariisna ku soo daray wax yar milixna ku soo daray distida waxa waaye bariis cad baan ku karkarin doonaa maqligana waxa waaye basal iyo saliid baan isku daray oo basal yar baan ku shiilayaa kadibna waxa waaye madabada waxa igu jiray chicken baan soo qaatay
Chickenku si yaryar buu igu jarjaran yahay. Waa chicken hilib kaliyaata ah. Chickenkii baa saa u jeedaan waxaan ku daray waxa waaye wixii aan xawaashi haystay, saliid, milix iyo basbaas cas. Intii aan ku daray kadib wixii oo dhan aan isku walaaqay. Madeebadu chickenku igu jiray dhinac baan iska dhigayaa si waxa waaye chickenka iyo xawaashiyaashu ay wax yar lafta iskaga soo galaan. Halkaan waxa waaye distidii oo bariisku igu karkaraya dhibayso kolbo igu soo karkaraysaa waxa waaye karkarkeedii dhibooyo waana kolbo waxa waaye maxaa la dhahay daboolka kolbo dhinac uga sikiyo. Waa kaas waxa waaye halkaan tooni kabsar baan ku tuntay. Tooni kabsartaan ku tuntay baan basashii ku daray. Kadibna basashii toontii kabsartaan isku tumay wixii baan isku walaaqayaa. Waa isku shiilshiilayaa saa u jeedaan. Basasha maanta ma aqaano maba ii shiilmaysaba. Ma ogi awal markaan saa u yara jeedsada ayadoo casaataan arki jiray. Waa kaas markii basashii wixii iska soo yara shiilshiilay wax yar. Hadda waxaan ku soo darsaday 3 malqacdood oo tamaandho qasaac ah ama yaanyo shiishiid ku basaa u taqaanaana. Biyo yar baan ku daray. Kadibna waxaan sameynayaa wixii aan xawaashi haysto oo dhan intii aan chickenka ku daray oo dhan oo kale baan halkaan ku darayaa. Waa xawaashi isku jirjiro mindi spices la dhaho waa milixdii, waa oregano, waa chili flakes iyo basbaas cas. Intaas xawaashi ahaan aan mar walba u isticmaalaa. Kadib intii isku walaaqayaa kadib haddana koob biyo aan ka daba geynayaa. Kadibna wax waaye waan daboolayaa. Cabaar baan isku soo karkarin doonaa soosta. Kadibna waxaan soo qaatay mashiinka la dhaho air fryerka shabagiisa saa u jeedaan waxaan marinayaa waa wax yar oo saliid ah. Kadibna chickenka iyo xawaashiyaashii oo wax yar isku soo yara raray amba wax yar muddo meel isku yara yaalay baan soo qaaday. Air fryerkii baan ku riday saa u jeedaanba. Kadib air fryerkii waxa waaye dabkaan ku xiriirinayaa 10 daqiiqaan chickenka ku soo shiili doona air fryerka. Soostii waxa weeye waxaan ku daray koob biyo ah saa u jeedaanba. Kadibna waxa waaye soostii markii koobkii biyaha ku daray si fiican ay ugu soo karkartay oo soo bislaatay. Hadda waxaan soo qaatay waxa waaye creamka la dhaho whipping cream. Creamkii baan soostii ku daray. Kadibna creamkii iyo soostii si fiican isugu walaaqayaa. Waxaa la moodaa soostii inay wada saliid tahay. Wada saliid maahan. Soostaa casaana wixii saliid ku jiray korba uga soo baxayaan. Marka creamkii soostii si fiican isugu walaaqay biyo yar baan ku daray. Dabka cabaar ku yara daayay. Cabaar yar kadib soostii saan u ekaatay. Hadda waxaan soostii ku soo darsanayaa chickenkii aan air fryerka ku soo shiilanay. Kadibna dhowr daqiiqadood ilaa 4 daqiiqadood baan dabka ku yara daayay. 4 daqiiqadood kadib saan ayay soostii soo baxday. Soostan waxaa la dhahaa butter chicken. Hadda soostii waxaan ku soo darsanayaa waxa waaye wax yar oo spinach ah amba koosta ah. Kadibna dabkaan ka daminayaa. Spinachku waa caleen waxa waaye markii wax kulul dhex gasho ayadaaba iska bushuqaysa. Dabkaan ka damiyay soostii kadibna waxaan korka kaga daadiyay wax yar oo oregano ah iyo wax yar oo chili flakes ah. Soosteeni butter chickenka ahayd saan ayay diyaar noogu tahay. Waxa waaye qadadii hadda miiska ayaan kusoo diyaariyay. Madeebadan butter chickenkii aan kusoo shubay. Butter chickenka hadaadan weligaa cunin waxaan ku leeyahay cunto macaan baa kaa maqane. Fadlan soo dhadhami haddaa rabtid xataa hotel ka soo dhadhami haddaa rabtidna aad sameyso. Qofkii cunay baa yaqaana butter chickenka waa cunto aad iyo aad u macaan. Markii la sameynayo waxaas taysa inta yar la isku dardaray miyaa macaan keenayso. Laakiin markaa cunaysid adaa yaabisid fudeedka markaa sameynaysid iyo macaanka madhow toole isma lahan. Waa kaas waxa waaye halkaan khudrad baan ku soo diyaarsaday. Saladkii baan soo diyaariyay. Cabitaankii aan soo diyaariyay. Waxa waaye halkaan waxaan soo dhigay distii aan bariiska ku soo kariyay. Waa kaas qadadeena maanta saas ay ahayd. Fiidiyowga gabagabadiisa ayaan joognaa. waxaan rajeynayaa videoga inaa idin qanciyaan baad wuxuu ka faa'iidi doontaan insha Allah videoga xaqiisa siiya oo fadlan like ii saara asxaabteena la sii share gareeya si wax waaye asxaab qurux badan sidii noo kale aan u helo maca salaama bye qada wanaagsan.